maxaa lagu yaqaanaa marka Soomaalida caadooyinkooda qof aysan weligood arag xataa magaciisa sixi karaynin ay sawirkiisa soo qaadanayaan markaas ka sheekeynayaan maanta oo dhan sawir kale ay haystaan information kale oo cid u dhiibtada garanayn ay haystaan haddii inta la soo qabto lagu yiraahdo cadee waxaan aad sheegaysid meel alla meel la aado la cuskada garan maayo ilaahay bay ka tahay haddii inta la soo qabto la yiraahdo noo xaqi inadii iyo mineralski sa jirka u badbaadisay sadee jirka u badbaadisay wiilka yarka aan ku iri war buufintaada cabaysid faraha ka qaad walaalkayo allah xaq lagu caabudan ku dhaartay maanta saxarada laga gura wiil jeer bidul saaray hatta inuu soo foorarsan karo saas u jiifa spinal cord ki istaagay neerfayaasho dhan baa ismasaxay sam سم لخص la soco marka walaal markuu jirkaagu sumaysan yahay afkaar kasta oo khaldan oo baadiyeysan ayaa ka dhacaysa oo acmaasheeda ku fooganta qabanaysa isma weydiinaysa xataa war waxaan xagee ku dhamaanaya sababtoo ah markuu awooda neerfayaashaadu inay feedback ku soo ceshaan ku dhahaan war ka joog waxaasa kaaga imaanaya saadarteed ayaan qofna inta ugu faraha badan xisaabta ku darsan shaqadan u qabanayo consequence-ga ku xiga war waa maxay ciqaabta ku xigta war waxaan aad qabanaysid maxay ciqaabo dib kuugu soo celin kartaa maxaa kaaga iman kara sadarteed baa nolosha ilaahay idin siiyey idinkoo dhan ee raaxada idin siiyey ay ciqaab idin ku tahay haddaad ilmo dhalaysa ciqaab kugu tahay haddaad guursanaysa ciqaab kugu tahay haddaad ganacsanaysa ciqaab kugu tahay haddaad wax baranaysa ciqaab kugu tahay haddaad cibaadaysanaysa ciqaab kugu tahay maxaa kuu diiday adoo faraxsan oo qoslaya inaad cibaadaysatid waay aad u murugaysanta u kurboonaysaa cadaabey walis cadaabaya waay aad kurbaysanta ma ilaahay baa ku yiri kurboob ilaahay wuu kuu sheegay wada cad muxuu kugu yiri haddaad wadadaad martid salaatu mustaqiinkaana jannad galaysaa waay aad u farxilaada waay jannada u arkilaada maxaa jannada ka aqriyay waay cadaabta u aragtay jannada u arkilaada hallucination bal yiraahdo waxaas marka lack of vitamin B12 mar walba image khaldan ayaa hortaada yaala sababta neerfayaashaadu ma talaali karayaan caafimaadka saxda loogu talagalay waay aad jannada u arkilaada cadaabta u aragtaa waay aad u farxilaada qoslaada ilaahay baa jannaynay yes ha waay aad u dhihilaada sababta acmaashaadu uu jirkaagu ku soo bandhigayo ayuu xaqiiqdaada ogi sababta jirkaaga ilaahay baa abuuray been ma sheego been sheega ma saatarteed ba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yiri koonka adigoo jooga ayaad ogaan karaysaa inaad ehlo naar tahay iyo inaad ehlo janno tahay ifka adigoo jooga nool hadeerta aad nooshahay ayaad ogaan karaysaa inaad naarta ku dhacaysid jannada ku dhacaysid sababta ah aayad quraana meel kale inaad aadid uma baahna aayad quraanka maxay tahay acmaash ugu horeyso ilaahay subxaanahu wa tacaala ka xisaabinayo huwa salaadii baan ku sheegtay ومعك قلتري إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صلاة هذه بقول شيكتي
haddii salaadaada ay xumihii kaa ilaaliso dee ahlu jannaad waa inaad jannada ku farxdaa adoo adduunka sii jooga waa inaad jannadii sii aragtaa sii qosashaa sii faraxdaa haddii salaadaadii kaa reebi weydo faxshi iyo munkar ahlu naar baa tahay dee waana sababta jirkaagu u arko sababta jirkaagu u naxsan yahay sababta jirkaagu u dareemayo ciqaabta sababta jirkaagu baqdinta kuu siinayo naartii buu arkaa dee israa'id u saxayay jirkaagu sababta waa abuur ilaahay uu ogyahay sababta ciqaabka ka dambeeyuu ogyahay saa darteed baad naartii u aragtaa ee jannadii arki laada saa darteed baad alle waxaan suuradda qur-aanka ugu dheer jannada ilahay bay ka hadlaysaa cadaab ka hadli maysa idinku waa inaad fahantaan diintiinni walaalayaa aayadda qur-aanka ugu dheer jannada ilahay bay ka hadlaysaa waayo aayadda qur-aanka ugu dheer aad u arki weydi ee aayadda qur-aanka ugu gaaban ilahay kuu tuso reason why sababta jirkaagii waa sumaysan yaa sumeeyey adigaa sumeeyey ilahay kaama sumayne mentaliga markaad ka caafimaad qabtid marka waa qodobka soo socda ee ugu dambeeya qodobka ugu dambeeya wey oo aan cabaar ku taagnaanaya mentaliga markaad ka caafimaad qabtid marka maskaxiya markaad caafimaad qabtid marka waxaad fahmaysaa nolosha saxdaaya ilaahay kuu abuuray bilowgeedii ilaa dhammaadkeedii toos bay diiradda kuu fuulaysa ad u arkaysaa adigoo wax korba ay ku tusaarnayn toos adigu waxaa tahay shaksiga u fiirso walaal mentalitygiina u fiirsada adigu waxaa tahay shaksiga wuxuu ilaahay u qoray oo ay tahay xaq inaad helaysid ka cabsi qabo inuusan heli karayn oo maxay waxaas irsaaqa wixii ilaahay kuu qoray koomkan wax ka badan kama qaadi kartid inta alla kuu qoray ayaad alfanaysaa waay aad u kurboonaysaa waad og tahay marna inaadan ka tegaynin wax alla kuu qoray koonka dushiisa ma qof baad dhintay isagoo wax alla u qoray koonka weli yaallaa never hadda waay adigu kurboonaysaa marka waad og tahay inuu alle kaa kaxaynin koonkan dushiisa wuxuu kuu qoray waxaan ahayn inaadan afka gelin karin halkan baa laga nool yahay iyo xubno caafimaad qabo halkan haddaad ka noolayn xubnahaaguna ma caafimaad qabaan mid kastoo idinkeeda ka mid a hadda oo ama guri iga daawanaya ama meel fadhiya biri wuxuu cuni lahaa buu ka walwalaya oo walaalo maxaad uga walwalaysaa ilaahay baa kuu sheegay ka badan aad cuni karin maxaa ku dul dhigay sababtu waxa way neerfahaagii waa sumaysan ma heli karaysid informationka caafimaadka qaban saad jirkaaga runta ugu sheegtid saad xaqa u dabaqdid sababta caafimaadkii waa maqan waaw markuu caafimaadkii maqayana maxaa imaanaya waxaa imaanaya fasfivalku muxuu yahay labalabayn talo biri ma cuni doontaa soo cabi doontaa dhammaantiin fiiri dhammaantiin waxaad ka walwashaan biri ma noolaan doonaa mise noolaan maayo oo maxaa ku geliyay walwalkaas إلهي بابا كوشيغي فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بابا الغوشيغي محا أدو كوال والقليي مقعمات كوهيسة تعضو كوال والقليي بالإسويدي بري معوني دونتا معرفان دونتا شقادا محا كو قشوالان يقول والكيدا توالي كربادات بابا الغوشيغي بإنا هذا الهيني waaba lagu sheegay saacadna kama soo dib dhaca saacadna kama soo hormartay waa lagu sheegay xataa markii lagu soo dirayo inaan lagu ogeysiinayn ilaa hal mar mooyaane subxaanallah quraankaaga fiir waa markaad mu'min tahay malaa'ikatu raxma marka ku imaanayso saacada ka hor bay hortaada marmaraysa markaas arkaysa ayagoo quruxda ka batay ka hor marmaraya markaas iska qoslaysaa waad shaqaysata markaas qof shaqaystay baad acmaashaas waa qof jirkiisa caafimaad ku ilaaliyay cibaadaystay waa qof neerfayaashiisu aysan sumaysnayn marka waay aan saa idinla hadlayaa clearka ah ee aayadaha qur-aanka ah ee aan la bedeli karayn qur-aankii waa labo wey
وآيادو أن لبدل كرين محكمات باليرادة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين إنه يحكوا بدل كرتو تبتل الغير وأنا مصميصة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذن يحكوا بدل كريس يوحل يراد متشابهات كالله بآدمك أوتركني وكنت علوم عافمات كان عاوة إدين تلمامية وحنا عاوة إدين شيغية آياتها القرآن كاية كينيوي آياتها القرآن كا كسو عسكنيس العلم يجيبها كجرمك نرشي ربها كجرت الكاس متشابهاتك أنا آياتها القرآن كاية إنك حتى سومالي نحي برشادة أي آد نوغو يرتاي قليل هالقف ما أورا كلام ما بجربه لكن دمانتان waxaan xafidsannahay aayadaha maxkumaadka baan xafidsannahay alla wuxuu yiri ununka laga gooyo ka gooya gacanta laga gooyo hal gooyo wartan ilaahay baa xukmay isku qabsi iyo diidme iyo ka doodis iyo midna ma baahna xukmo bedeli kartid yaxdooda ma baahna yaa ku diray shaqo ilaahay qabtay baad isku haysanaa maanta dhan shaqo Allah noo qabtay ayaan isku haysanaa innagii dhan u fiirsan marka ilmaha yarka markaad korinaysid waxaad isticmaashaa khuluqa maxkumaadka la yiraahdo xukun maanta dhan fariiso cun saaxo ha taabane ilmaha yarka lagama yaabo inaad متشابهاتك كل dhaqantin oo nolosha inay ku jirto sadarteed ba quraanka wuxuu yahay marka 7 xukun gaarida adiga lagu ma dirsan yaa ku tiri adiga yaa shanta ku gashay ما لو قدرين أوفيرس القرآن كريم I'm so glad إن القرآن كريم كبرتان رنتي وتكون لي بانسة أوفيرس مرك and قال بتاعي بكلي قال دي كفكو قال ما دي أبورتي إلهي بأبورتي حتى أنا شاهدت وقوا قال باسمي وسألت كنت كني ومركي النيرف يا شعب أي سميسيه هذا كنت راهدي تلفون كسكري قال بس ما تلفون كي يقول لي أنا قطعه أنا تلفون كي واضح حاجات كذا تلفون ميد دي معنا برات كل صباح حدي حاجة كذا تلفون كبه بيح حتى كنت راهدي ماذا سمعتي وأمرك النرفياش هذا اسمه سيء مو كسينيو نرفعه حقيقة الصحة إنه نولش بالآذن كإلهي سبحانه وتعالى وأبوري ويكارك أنت هذه الأمر مرة الواحد عوج بتاعك مال أدق ودين تهذا ليس كورة عينين أدقنا كقول دريسنس كل درة يتجنانس وعقول قال كفكو تنام محمد كفكو قال لا أدركيس واي نبي محمد أركس وقف قامي آيات القرآن قال له وسود تجوا في رزق مرك waxaan rabaa marka ujeedkayga marka muxuu yahay ujeedkayga waxaan ka raacayaa waa markii mentalligaagu uusan ku ahayn mid ku arrange garaysan waa in maskaxdaadu ay tahay mid arrange ah mid nidaamsan markii neerfayaashaadu ay ka samaysan yihiin maskaxdaadu ma arrange garaysna waa isku dhex yacsanta saa darteed buuqa faraha badan ee madaxaaga ka guuxaya ee marka qaarkood aadan mini karaynin maasif waxa ka dhex soconaya ay waxa weeyaan neerfayaashaadii oo isku dhex yaasan
oo aan shaqadii si sax u gudan karin neerfayaashaadii oo midkoodna uusan garan karaynin informationka loo dhiibay xaggu la aado maskaxdu marka waa inay kuu nidaamsanta markay kuu nidaamsan tahay ayaad go-aan ku xejin karaysaa adoo dabaqad uga baxaya saa darteed waxa weeye 3 sano ka hor stagecaad joogtay waa kaa mustaxiil waa guuldarro inaad maanta weli joogtid nolosha biniaadamka inaad ka duwanta saa darteed markaad doonaysa inay noloshaadu ka bedelan tahay 3 sano ka hor saad u noolayd waa inay kuu arrange karaysan tahay waa inay kuu nidaamsan tahay maskaxdaadu inay maskaxdaadu kuu nidaamyoodana waxaad heli karaysaa markii jirkaaga aad sun saartid markay neerfayaashaadu isa kaa sumaysnayn isa kaa sumaysnayn absolutely saa darteed markayse maskaxdaadu kuu nidaamsanayn waa maxay waxa aan ilaahay kuu tirsan ee aad ka buuxinaysid oo waxyaalaha khuraafaadka ah hadda tusaale kaan ku laabanaya hadda qofka bini'aadanka ee ilaahay rasuulkiisa aan rumayn ee haddana dhalanaya oo 9 bilood uurka lagu qaadayo ee tarmaya gaaladu su kuwa tarmaya maaha gaaladu kuwa dee dhalaya maahan dee soo maaha ma adiga tarmiya adiga miyaa koonka keenay soo allihii abuurtay uguma talagelin asagu inuu koonkiisa keensado way maskaxdaada u fahmi la'dahay war dadkan allihii abuurtay baa tarminaya way u fahmi maskaxdaada adiga miyaa abuurka leh soo allah ma abuurayo allah hadduu sar kii koonkan iska lahaa ee fatabaaraka allahu axsanul khaaliqiinka ah soo maaha kan abuuraya ee inay dhalaan uur qaadaan weliba mataanaha siinaya xagee u socota adugu way u dirrigi damleeda xagee u dirrigi damleeda adugu xagee u ordaysaa soo kuwan maaha ayagoo kaa qurux badan kaa tima jilicsan kaa xubno wanaagsan kaa faham badan soo kuwan dhalanaya maa ma adiga abuuraa waay maskaxdaada yarta u fahmi la'dahay war ummaddan alliha koonkan iska lahaaba abuurta isaga ayaa raba isaga ayaa doonaya isaga ayaa meeshu la aadaya garanaya farax ka qaad amni si adiguna amnigaaga ka ilaasho waay u fahmi la'dahay logic maskaxdaada yarta ah mase og tahay adigu adigaagan meesha fadhiya mase og tahay gaalkan dhalanaya inuu adiga badbaado ku yahay oo diyaaradda xajka ku tegi lahayd mid ayaga ka mid ah cilmigeeda ilaahay maskaxdaada geliyey inuu kuu soo saaro miyaad ogta adugu taas kumaliyadiin adugu waay maskaxdaadu logic u fahmi la'dahay taas si tartiiba way kugu culusta sababtaa waadan jirkaagii sun saarin sun baa dhooban jirkaagii ma kuu soo gudbin karayaa neerfayaashaadii information saxda ma noqon karayso maskaxdaadu mid kuu soo gudbisa waxyaalaha logic ah waxyaalaha macquulka ah inaad hal mar
so maskaxdaadii marka arrange garee mental arrangement u baanta waa maskaxdaadii management ku leedahay nidaam marka maskaxdaada ku nidaamsan tahay ayay ku soo saari karaysaa wax walba oo ka soo qaad gurigaaga nidaam ma ka jira nidaam qorshaysan oo jadwalaysan oo saacad ma ka jira cuntadii maxaad ka fahmaysaa marka taas marka lagu leeyahay war qur-aankii u tartiibi markaad tagtid waad ku raaxaysan ogta meesha qor badana markii neerfayaashaadu sumaysan yihiin maxaa lagu yaqaanaa beenta been baad u sheegaysaa bulshada kale I see gurigaagu egi halkaad dhex qarsoonay xaqiiqdan aadan jirkiisu sumaysan yahay guriguna waa inuu sumoobaa waa garanti way yeelanayaan gurigaaga jirkaagu armay adiga dib kugu soo laabataa naxdin ay kaa naxaan laakiin may sababta aayadda qur-aankaaba ka weyn waxaan anigu waan dareemay saa darteed waa idinka cudur daaranayaa hadalkaygu hadduu idin daqiyo iska adkaysta sababta inay idin daqiso faa'iida idinkugu jirta
كوجرت إلى ينتقص دن يكون كوجرت ودن تكون كوجرت محيطة ما أبور إلهي سبحانه وتعالى مل حنوصا إني بسكوته كهر إذا الحقن so sun saaridda jirkaaga qodobka ugu dambeeya waxaan kuu sheegay haddeertaan 1 2 3 4 5 6 qodob baan kuu sheegay kii toddobaad baan kuu sheegay waa toddobada qodob ilaahi subxaana watacaala baan diyaariyey ma aan wax kala diyaarsay iyo muslim doona waa cusbada badda anuu cusbada baddan ku qubaystaa wax kale kuma qubaysto 6 sano iyo bar ka hor ayaa shaambe ugu dambeysay iyo saabuun doona cusbada baddan ku qubaysta نظافة وقاية سوريا جينا نفيس دارتا وكو سورة كلاس no way سولتا شركاغو سوريا هاديرتا نفيس كان وسخين يوي مركز من ترى محوك إلى هاديرتا ميد سوق سوقر مقعو صح وسوقر ماركو dad waxay soo qorayaan hoosta waa xagee caguhu waa hoos luguhu waa hoos xagee way hoosta
وماشي بكتيريا شركة أكون متى صدرت البحر إن حفيد حافظون والذين لفروجهم حافظون وحب أنت كريه القرآن الكريم كوجرت أنا وينيس يحيي النصف من الإيمان وإيمانك بركة ولا شيء أما ولا الكيو كور هدد بلاد نظافة 24 hours هذا أوجين إن إيمانك بركة كام غيه how do you think so ودريمزا feeling أقواسه إلهي أدقو كعب صنية إمس إنك إن كمل هذا التاور صبر على نظافة لا عد ولا حساب negative ما هي لكن I know the reality I know I know sababta ha jirkiini baa sumaysan markasta jirkaaga sumaysan yahayna iimaankaaga hoos buu dhacaya sababta acmaash uu jirkaaga ku foogan yahay maahan acmaashii iimaankaaga kor u qaadaysa ee waa acmaashii iimaankaaga hoos u dhigaysa oo maxaa jirkaagu ku kalifa karaya inuu ku fooganaado acmaash iimaankaaga hoos u dhigaysa ha sababtoo ah wuu sumaysan yahay inaad sun saartidna adiga ayaa diiday la soco absolutely and خير الله كسي مركب لا سوى مركب مركب تاي مركب lack of vitamin B12 نظافتها وصلافسها lack of vitamin B12 مركب تاي هذه نظافتها تكلم فوقانسان سببتها نظافتها انتو كفرابان وواح قف بالآدم كأصور معه هريا له وإيمانك يسوء كوين ده صلاة المغرب إيتان أنت أوجدها thank you ولكن مركب haddaad u baahan tahay ogaanshaha markasta inaad ogaatid inaad jirkaaga soo saari karaysid 7 waxyaalood waa inaad iska saxdaa marka koowaad inaad iska saxdaa oksijiintaada 2 waa inaad iska saxdaa cabista biyaha 3 waa inaad iska saxdaa nutritionkaaga nafaqadaada cuntada cunaysid kullu min dayawaat ma rasaqnaku 4 waa inaad iska saxdaa movementkaaga socodkaaga waa inaad leedahay bewegung waa inaad socotaa bewegsish soco dhulka ilaahay كل شيء قصير في الأرض بكل 4 5 waxaad u baahan tahay inaad markaa fitamiinadaadii iyo mineralskaaga saxdid 6 waxaad u baahan tahay mentalkaagii inuu ku arrange garaysan yahay arrangement mentalitygaagu inay ku nadaamsan tahay oo isku xireen wax walba 7 waxa weeye inaad nadaafad leedahay sadarteed 7 uma kala maarmaan 7 إلى بس كل هالري so 7 markay ku saxan yihiin marka ayaa waxa kale oo dhan saxayaan oo habeenkii maalinta ku iimaanay oo habeenkii maalinta maxaa ku iimaanaya habeenkii waxa ku iimaanay inaad seexataa so marka jirkaagu caafimaad qaba ayaad hurdo heli kartaa marka jirkaagu caafimaad qaba hurdo heli maysid markuu jirkaagu caafimaad qabo ayaad maalintii socon kartaa laakiin markuu jirkaagu caafimaad qabo maalintii ma socon karaysa fadhiisa so 7 dhamaystir marka
toddobadan markaad dhamaystirtid waa liibaanaysaa so waxaan soo qabanaya marka dadka walaalaha hadeertan mawduuc intaas ku joojinaya waxaan geli doonaa marka su'aalihii anuna wax weeyaan hawl yar baan qabsanaya insha allah hawl yar ayaan soo qabto horey muudka gal walaalkayo haddaan ku soo qabto horey muudka gal waxay ku dhacaan waa idin soo laabanaya haddaan ku soo qabto horey muudka gal haddaan ku soo qabto horey muudka gal السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعاء وكل شوقة مود إيجام. والله هذا ها إني هذا حاجة جدا. هاي أنا بصور عبر هاي. أنا سوف أعمل لك. هاي وقمصني هذا أقول قرتب. على يرى وين المود كشة ولا الكيو. صور يعني. عليكم السلام. هاي. وين المغرب عليكم السلام. على يرى قربت صار. طبعا هذا ساعتها. حاجة دكتور. هذا بنت كنية إن سام لا إذا كحر الماشى أنت صلاتي تكنية إذنك إذنك يتكية waxaan ila joogaa wixii ka dambeeya 7 daqiiqo 8 daqiiqo haddii inta salaad ugu qaadato Allah idin barakeeyo dadaal sheekaysta kana sheekaysta mawduuca caawa ku saabsanaa jirka si loo saaro qof walba ka waran jirkaaga waxaad ka aaminsan tahay ilhaan ma qalbi jira تقدر سيتها وإلى الموت كشامك احترامك إلى الولد الله يدبرك إياها markaad wada hadlaysaan idinku muurka ka soo baxbaxa inta ka horeysa waxa weeyaan qof mar weyn oo hadlaa si dad waaweyn oo maashaan su'aalaha idin weydiiyey isku daya inaad ka jawaabtaan shaashadaasna iska ilaawinina haddii kale way idinku dabaysaa meeshu sam bay oranaysaa anaa runtii idin sheegaya sam bay dhahaysaa allah idin barkay waa idinkaas soo dhawaada dhammaantiin معك دكتور اسم الله كأقبل الصلاة ولا لا سود وهذا كيف إن شاء الله ولا لا هو شاشة نقرأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobadii uu Dr. Isim maanta uu noo faa'iideeyay oo jirka sida sunta loo saaro hadduu yahay fitamiinada iyo mineralska haddii yihiin imsaa kaga dhaqanaa soo baxa insha Allah waa kala faa'iideysanaynaa ilaahay idinkiisa buugga soo qaada buug yaraan ku qoray soo baxa walaalayaal insha Allah السلام عليكم وعليكم وذا السلام دمانتين سلامة إسلام كان يدكم سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دليل ردي نجا سوري سوقا ويا مصري
marka waxaan leeyahay meegu waa idin dul yaalla idinkaa naga soo horreeyey waad hadli weydeen saasaan u boobnay naga raalli ahaada haddana meegu waa idin dul yaalla ku soco xigma soo dhawow maasha allah baryahan maana ku maqlin qolalka kale شكري soo dhawaada maadaama tahay mawduucyada waan qoray dadka cusub ee imika yimi maadu u yar guud mari min fadlak maadaama tiri waan qoray waan qodob adigoo raali walaal may maqashaan walaal haa waan ku maqalnaa ku soco soo dhawaada dhakhtarka wuxuu dhahay jirkeena markay sunta ka badato xubno badan oo jirka ka mid a ma shaqeynayaan oo neerfaha iyo maskaxda u muhiim u tahay maskaxda inteeda badan biyahay ku shaqeysaayo dhahay haddaadan number 1 biyo cabin ee jirkaaga ma isu soo saari karo oo maskaxdaada biyo ku filan ma haysato waa kow cuntadaada haddii cunto isku dheelitir ahayn oo nutritionkeeda lahayn ayadana jirkaaga isma soo saari karo oo number 2 number 3 qof oxygen qaato oo hawada u baxo oo geedaha oxygenka laga helo aana ku soconin haddaa tahay jirkaaga oxygen nadiif ma soo geli karo meelaha badda iyo xeebta haddaada joogin hawadaas wuxuu dhaha cusbo yar bay soo qaadaysaa cusbadaas jirka markay hawadaas cusbada la gasho way isu soo saarayaa yacni still oxygenkii baa ku dhex jirnaaye oxygen ama geedaha hoostooda laga helo ama badda iyo xeebaha iyo laga helo meelahaas banaanka guryaha in laga baxo la socdo hawo nadiifa lasoo qaato jirka ayaa isu sun saaro midda afaraad inay tahan jeclahay in cuntada la cuno in oxygen la helo biyo badan la cabo in vitaminada iyo mineralska jirkeena ka maqan in la qaato vitaminada markii laga hadlaayo iyo mineralska door weyn ayay jirka ka qaataan magnesium ha noqdo oo mineralska ku jiro zinc ha noqdo mineralska ku jiro B complexiga B6ka B9ka B5ka kulligood B complex la isku dhahaa waa vitamins iyo vitamin C oo asagana vitaminska ka mid ah intaas waa jirkaaga inuu haysto marka intaa aa haysato ayaa jir caafimaad qabo oo isoo saaray ayaa haysanaysaa ayuu dhahay ani waa inii soo koobay haddii dhakhtarka wax badan uu inii sharaxay waa inaa biyo kugu filan oo nadiif biyaa cabaa haddaa dhahda 2 koob cabtid jirkaaga isma soo saari karo inta dheerarkaagu yahay 2 goor ku dhufanaysaa intaasaa kuu soo baxayso haddaa 1.6 haddaa tahay 162 haddaa tahay dheerarka times 2 baa dhehaysaa 2 litir iyo baraa kuu soo baxayso allahu mustacaan heer 5 minutes raali ahaada qofa u ku jawaabayay soco marka biyahaas waxyar meel ilmaha tigaya ka fog shaashadda garaaca shaashadda inta ay inantu idiin sharaxayso idinkuna shaashadda garaaco dee qolka kor u qaada waa idin sideeye abaalkiina waa inaad ka dhigtaan shaashadda garaacdaa jazakallah khayr maasha allah oxygenka marinay marka oxygenka hawadaas banaanka aad u baxdo geedaha aad ka helaysaa ama bad iyo xeeb hadday kuu dhowdahay jirka markaasuu isu soo saaraya biyaha kugu filan biyo waa cabaa haddaa dhahda oo 2 litir wax ka yaraa cabtid yacni biyo kugu filan maada cabin haddaada garanayn biyaha kugu filan 8 bakeeriga shaaha aan ku cabno 8 ounces
sideediisa maalinkii ha kugu yaraato haddaa ka badisid waa qeyr laakiin ugu yaraan sideedaas waa 2 litir jirkaada ha gasho haddaa gaabantahay haddaa dheer tahay biyahana halkaas uga bixinaa fitamiinadaadan inaad ka warqabtid waaye fitamiin D-gaada inuu fiican yahay mar walbo ayonadaada inaad ka warqabtid laana dhiigga dhan oo jirkaada ku shaqeynayo waa haddaa low iron tahay dabeecadaada ma hagaajin kartid isdhexgalka shaqooyinka bini'aadanka dadka dhexdooda wax badan baa kaa hoos maraayo shukriya marka kaa dhexgaleen halkaa ugu yar cel waxay soo qorayaan dherarka miyaa lagu dhufanayaa biyaha haa dheerarkaaga ayaad fiirinaysaa sentimitir hadduu yahay laa tusaalo 162 aniga hadda 162 haddaa ahay waad ku dhufanaysaa laba ku dhufanaysaa miyaa 1.62 times 2 baa dhee 2 litir iyo bara aniga liiga rabaa maalinkii nacabo marka dheerarkaaga aad 2 jeer ku dhufanaysaa dhibicda dasimolka waa soo wareejinaysaa haddii xisaab qalad ee lacala ay ku siiso dheerarkaada unbaa labo ka dhigaysaa then biyaha saxda ah baad caag ku shubanaysaa maalin kasta waa ka tuuraysaa markaas waxaa dhihi kartaa biyo igu filan baa cabbe fitamiinada way kuu shaqeynayaan markaas haddaad tusaale ahaan magnesium qaadatid oo hurdada kaa tagto biyo yaraan baad jirkaaga biyo kugu filan oo fitamiinka uu dhuuqo ma aada siinin dhiiggaagu kasoo dhuuqayaa marka biyaha kugu filan oo aa hubto waa dheerarkaaga inaad 2 goor aa ku dhufato caagad qiyaasa ku shubad waaga markuu ku bariyo qorax markay ku dhacdo aad dhammayso markaas biyaha kugu filnaa meel baa iska dhigtay 40 minutena waa inaad dhirta dhex socotid ugu yaraan haddaa ka badin kartid 2 mile inuu dhakhtarka hadda ka hor dhahayaan jeclahay 2 mile maalinkii ugu yaraan waa socon kartaa oo dhirta aa ku dhex socon kartaa cuntadaadana waa saxday oksijiinkaasna waa heshay maxaa kale intaa markaad samaysid fitamiinada mineralskana qaadatid sun jirkaada ku jiraysa bal banaanka u turtay walaalaha kala soo qabsada marka insha allah intaas yaraa idiin qoray waanoo mashquulsan insha allah inteena saliidda lagu luqluqdo oo maanta lagu luqluqanayo sisima oil waaye oo organic ah ma ahan yaa macsaro ma aha macsar ma uu dhahay sisimada oo sisima ku qoran sisima oil saliiddaasa soo gadanaysaan afkaad ku shubanaysaan subaxii 5 daqiiqaad ka bilaabaysaan inta awoodiina ilaa 15 20 30 aroortii ku luqluqda habeenkiina intiina seexana ku luqluqda all the difaaca jirka oo dhan wuxuu isugu imaanayaa afka waa meesha bakteeriyada iyo qashinka ka bilaabmatuu dhahay dhakhtarka sisima saliiddaasa soo qortay waaye marka boqolkiiba 35 afka ayuu difaaca isugu imaanaya inuu dhahan jeclahay marka afkaas berihiyaa ku jiro qashinkii qumankii waxaasoo dhan sesame oil miyaa mise waa wax kale waa sesame oil baayo saasaan maqasarada maaha maqasarada organic inay tahay qod cadayn kartaa ma jirto marka maqasarada iska ilaaliya dukaamada waxaad tagtaan lagu iibiyo alaabaha dabeeciga ah dabeedna waxaad ka soo iibsataan iyadoo orgaaniga ha soo iibsanina iyadoo aan orgaani ahayn calaamada orgaaniga ka dhex baada ama biyo ama calaamada kale ee wadamadaad joogtaan ee orgaaniga ay leeyihiin marka maqasarada caadiga ah ku luqluqanin cod cadayn karta inay originaal tahay iyo cod kale ma jirto saliidiinaasna ku luqluqda intaa kalena iska saxa soo gala baaya qabsadaya bal imaka inteenan maadooyinkii laynoo sheegay laftigooda haddaan isweydiino oo ay shukriyo inala talinaysa kaga soo bilowno shukri meelihii xeebihii iyo kaymihii socodku mitaa maaha inaad intaad carartid suuqa wareegsatid oo qashinkii suuqa aad soo qaadatid ee socodku maaha
soo dhawow si fiican doctoraad soo noqotay socodku maasha maaha allah inaad meelahaas wixii saliid gaas ay sii daayeen baabuurta intaad soo neefsato aad tidhaahdo dabeedna waa socday socodka laftigiis waa inaad dhulka kayma aad tagtaa marka doctoorkiina wuu yimid doctoorka inagala wareegay waa mahadsan heerku ka gaarsiisan yahay inuu ka jawaabo qisa yar baan laakiin ka hormarinaya qisa yartan ka hormarinaya waxay tahay jirkaaga jirkaaga ugu geysid qof kale aad ku tiraahdo war caafimaadkiisii iga shaqeeya oo ilaali ama ii sheeg saa darteed baad sifadu inay tahay sifo ilaahiya ah waxaad ku ogaan karaysaa ma jirto koonkan dawo taalla oo cudur daweysa oo bini'aadan soo saaray ilaa tii alla mooyaane isu jamciya dowladaha dunida ku nool oo dhan hal dowlad oo soo saartay ma jirta hal dawo oo cudur daweysa oo cudurka magaciisaad garanaysaan maad haysan hal dowlad oo koonkan aan ku noolnahay dushiisa saaran oo hal dawaa soo saartay dawadaas oo cudur daweysa oo la yidhahdo dawadaas cudurkaasa loo qaataa dib dambena qofka loogu arki maayo jirkiis ma haysaan ma jirto doctore shaashadda inoo garaaca biliis doctoorka uu ku dhegay markaa fadlan shaashadda hala garaaco 400 la gaadhsiiyo si aanu u qabsan haddii kale uu ku dhegdegaya markaa 400 ku inoo gaadhsiiya fadlan miyaad haysaan jawaabtii ma haysaan waa maya doctore ma jirto ma jirto soo maa Ya. okay tii bini'aadanku soo saaray weli ma haysaan mid lacag la'aana mid lacag la-aan oo free may ma haysaan dee ma hayno waa ay lacag u noqoto waxay ka raadinayaan faa'iido allah yan barkay intaas caqligaaga yarkaa ma ku siin waaye hadduu ku siin waayo waa ku siin waaye sababta ah jirkaagii waa samaysan neerfayaashaadii oo awoodi karaynin inay u gudbiyaan wixii maskaxdaadu quudan lahayd say khatarta kaaga ilaaliso say kuu fahansiiso waxaan saxda ahayn inaad baratid waa aad u baran laadahay baad biniaadan ugu daba fadhida suu kaaga ilaali waxaan inay xalaal yihiin inay xaaraan yihiin inay bannaan tahay inaysan bannaan
hadduuse laakiin bini aadamku kugu yidhaahdo war waxaas waa xaaraan waxaas waa xalaal aysan waxba ka jirinin oo aad ku dhaqantid yowmal qiyaamaha waddadu maraad maraysaa sababta adiga bini aadamka raacay mara ma isweydiisa may maskaxdaadu ma ku siin karayso inaad qaabka wax u fahamtid sababta neerfayaashaadii oo dhan baa sumaysan neerfayaashaadu markay sumaysan yihiinna ma gudbin karayaan enerjiga nuurka maskaxdaadu u baahan tahay ay quudato se u noqoto mid awood leh kuu sheegi karaysa waxa xaqa ah iyo waxaan xaqa ahayn wax adiga ku badbaadinaya iyo wax adigaan ku badbaadin karayn so bini aadamka halkaa fadhiya may kaafatan linnaas wey waa loo siman yahay midna gaar uma yeelan karayo midna looma daba fadhiisan karo kaafatan linnaas keliya waxaad ku kala hormar waxaan xalaal ahayn baa lagu dhihi karaya waa xalaal waxaan xaaraan lagu dhihi kara waa xaaraan hoggaan baa kugu xiran marka waa ay kuu siin laaday maskaxdaadu inaysaa ku badbaadiso sababta neerfahaagan caawisaa oo neerfayaashaadi se ku caawin karaysaa sababta neerfayaashaada quudka waxay ka qaataan xagee ka qaataan toddobadii waxyaalood aan kuu sheegay waa toddobada waxyaalood quudiya soo jirkaaga ilaahay si u diyaariyey markaad cilmigeeda baratid amazing wax ka macaan ma jirto so fiiri marka nerfe ilaahay subxaana wa tacaala waxaan kuu sawirayaa so markuu ilaahay jirka abuurayey qaab wuxuu abuuray logic ah taasoo isaga abuurkiisa ay aad qurux badan subxaan allah eeg marka ilaahay wuxuu ku siiyey marka neerfe magacyaal kala duwan iyo shaqooyin kala duwan qabanaya mid ugu muhiimsan baan soo qaadanaya marka oo mucjiska ah waxyaalahay gaaladu inta ugu faraha badan ku khasbaya marka qaarkood diinta islaamka aysan inkari karin jirka wuxuu leeyahay waxa la yidhahdo cognitive nerves waa in cognitiviskaasu ay ka gudbiyaan dhacdada dhacaysa oo markii dhacdada dhacaysa neerfayaasha cognitiviskaas ay black boxka ka dhex dusiyaan
kadib gudbidda ee gudubto dhacdadii ayaa waxay u tegaysaa marka behaviorkaagii khuluqaagii taas oo ah inaad ka falcelisid dhacdada dhacaysa saa darteed black boxkaas wuxuu yahay waa cilmi qaybka waa waxa kaa maqan oo aadan aqoonta u lahayn waxa dhacayo aad ogeyn beri inaad noolaanaysid iyo inaadan noolaanaynin ma ogaan karaysid sababtoo ah black box ba kaaga aadan ayaa khuluqaagu mar walba wuxuu yahay dadkaas waa dadka cognitive nerves ka dhaawacsan tusaale kale ilmaha autismuska ayo kale ilmaha qalqaaliga ah kama gudbin karaya black boxkii ma fahmi karaya khuluqiisu ilmaha yarka inuu yiraahdo war lagu yeeray waxa lagu dhawaaqay already diintoodii iyo khuluqoodu marna absolutely laba iskeli karaysaa definitive sharciyada islaamka iyo khuluqoodu gaalnimo kale saddex maqribka iyo 7 sunna wuxuu uga jeeda ma garan karaysid inuu 7 sunna been ku sheego behavior marka maxay tahay waa qaabka aad uga falcelin lahayd waxaas garamaysid markaas iyaduna wax allaale waxa uga jeeda iyadan garanayn aysan ku aaminayn ku leedahay ya runtiisba
maxaa lagu yaqaanaa marka markii neerfayaashaadu samaysan yihiin markii neerfayaashaadu samaysan yihiin calaamadda koowaad lagu gartaa waxay ka mid tahay haddaan idiin sheego haddaad ku nooshahay adigaa arki doona calaamadda ugu weyn aad ka mid tahay waxa weye waxaad 20 sano soo aaminaysay ayaad 1 second kaga aamin baxaysaa 20 sanaad soo aaminaysaa ayaad 1 second ka aamaan baxaysaa 1 second ayaad macno kale u samaysaa xoranaysaa بيلو حتى 20 سنة ayaad qowlkiisa soo aaminaysa waad warlow u fiirsada marka qoysaska is qaba ka filan soo qoraya toban sano hadda midda kale la noolaa tanna one day buu la joogaa goormay qalbi eg that is the reason aan rabo inaad fahantid markaad neerfaha ka xanuunsan tahay haweenaydii marka 10 sano lala soo noolaa ee haweenayda one day lagu yiri way kaa qalbi nuuriyo badan tahay confuse baa ku dhacay iyada laftigeedana cognitive nerveskeedii massive information inta leeg black box kama gudbin karayo waxay yeelanaysaa marka khuluqeedii wuxuu noqonayaa marka mid ku confuse garooba maxay abuuranaysaa marka iyadana buuq u gaar way ka falcelinaysaa marka waxaa aragtana buuq meel walba ka alowsan cognitive nerves liita black box wax information ku gudbaysa jirin iyo khuluqii isku dhex yaacay oo wax natiijada soo gaaraya jirin that is the point aan rabo inaad fahantid markaad tahay qof doonaya inuu cilmiga barto maxaa kaloo lagu yaqaanaa qofku markuu cognitive nerves isa shaqaynaynin markii neerfayaashaada ay samaysan yihiin si wax caawan ka hadlay the second waxa lagu garanaya waxaa ka mid oo kale daacad la'aanta markii adiga daacadda inaad daacad tahay inaad cadaali tahay markii adiga iyo cadaaladdu ay kala dhammaadaan waa markii stageka ugu hooseeya aad tahay low cognitive nerve baasha cadaaladda la yidhahdo markaad aragtay adoo ilmahaaga u kala cadaalad falay iska daa cid kale kuwii dhashay adoo midka odhanaya hooy inaga daa isagoo adaan kaa jeclay iisoo qaba waxaas hooy inaga